السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Tom Graphics. maanta cashirkeena shanaad waxaa ku baran doonaa sida loo soo geliyo muuqaalo Adobe Premiere Pro. ugu horreyn noo soo kici softwarekeena. sidaas ku ogeyn mar walbo aad soo geshid haddaa project cusub aad samaysanaysa new project dah hadduu project kale hore kugu socdana meeshaan ka soo furo kartaa. anaga waa kana qaybta recentiga noo yaala example 1. okay, si aan u soo gashano muuqaalo sawiro waliba codad aad banaanka keensatay waxaa loo soo geliyaa dhowr qaabood. qaabka koowaad waxa waaye inaad timaado qaybta project panelka kadib meel banaan aad double click aad dhahdo laba jeer click aad dhahdo kadib waxaad doonto aad soo gashato. qaabkaas waa qaabka koowaad. qaabka labaad waxa waaye isla project panelka adoo meel banaan joogina right click dhahdo kadib aad ka doorato import. asagana sidoo kaleeto qaabkaas waa loo soo gashtaa kadib waxaad doonto soo gasho. qaabka saddexaad waxa waaye inaad qaybta file ka tagto qaybta menu barka kadib aad dhahdo import. asagana qaabka saddexaad waa aad ku soo gashan lahayd muuqaalada iyo waxaad doonto. sidoo kale waxaa jira qaab afraad asagana waxa waaye inaad isticmaasho shortcut. waxaad taabanaysaa control I. asna waa qaabka afraad aad u soo gashan karto muuqaaladaada kugu jiro computerka. qaybta ugu dambeyso ayadana waxa waaye inaa softwareka ku jirto inaa minimize dhahdo and then kadib aad tagto meesha muuqaalkaaga iyo waxaagay ku yaalaan aad soo jiido drag and drop aad samayso adoo lift click ahaaye. markaa softwareka saan usoo dul saarto kadib qaybtan project panelka aad ku dhex dayso. asna waa qaabka shanaad aad u soo geli karta muuqaalo. sidoo kaleeto su-aasha isweydiinaysid ayaa ah folder ayaa xogteeda kusoo diyaarsaday marka ma soo geli karaa Adobe Premiere Pro folderkaas? haa, waa soo geli kartaa adoo maraya intii qaab ah hadda kuu soo sheegay. waxaa keliya samaynaysaa intii qaab mid ka mid ah adeegsanaysaa oo loo soo gelinayo muuqaalada. anaga hadda waxaa adeegsanaynaa double click inta dhahno kadib tusaale hadda gudaha gelaynaa meel oo folder ku aruursan Adobe Premiere Pro templateeskooda. tusaale hadda inta u jeedid folder ku aruursan folder walba waxaa kusii dhex jiro faylal. qaybtan u jeedid overlay stock ku qoran haddaa gudaha usii furo waxaa ku jiro overlay badan. anoo folderkan furin Adobe Premiere Pro soo dhex gashan karaa folderka dhan. kaliya waxaa samaynaysaa hal maraa left click siinaysaa open madahaysiida waxaa dhehaysaa import folder. kadib waqti yar oo qaadan doonaa waxay ku xiran tahay fileska meesha ku jiraan folderka dhexdiisa and then wuu soo geli doonaa. okay, muuqaalkaagii iyo waxyaalahaagii kaleeto Premiere Pro waa soo gelisay. marka waxaa u baahan tahay inaad qaybta timelineka geysid. inta aadan muuqaalkaaga geynin qaybta timelineka waxaa marka hore geynaysaa qaybta source monitorka si aad uga soo jarato waxyaalaha aad uga baahan tahay. waxaa waxyar sharxi doonaa qaybtan source monitorkan. source monitorkan si aad muuqaal u keeno qaabab badan u keeni karaa. tusaale inaad muuqaalka aad sameeyo drag and drop aad kusoo dhex jiido kadib inta ku dul daayo. sidoo kale waxaa samayn karaa in muuqaalka inta asuu yaalo qaybta project panelka double click aad siiyo. okay, qaybtan marka waxa ku yaala waxyar sharxi doonaa. kansa ujeedo waxaa la mark in mark out. labadan dhinac muuqaalka markii bilaawa kasoo bilaabaysa waa kanna meesha ugu dambeysa markaad tegay sidaa taabane. iyo sidoo kale waxaa ka hadli doonaa wax la dhahaayo codka keligiis sida loo soo qaado muuqaalka keligiis sida loo soo qaado. okay, kor waxaa ku hormari doonaa labadan icon oo la kala dhaho mark in iyo mark out. waxay kuu qabanayaan muuqaalkaaga intaa uga baahanta inaad ka soo jarato. tusaale muuqaalka hadda waa dheeriya 46 sekin waaye. 46dan sekina waxaa rabaa inaad kelib yar ka soo jirto. tusaale markaa inta maraayo waxaa taaban doonaa mark in. inta waa taaban karaa. sidoo kaleeto waxaa taaban karaa keyboardka I. meeshaanu iga bilaaba marka waxyaalaha soo socday inta muuqaalka igu ekayaaleya. sidoo kaleeto mark out inta waa taaban karaa. keyboardkan waxaa ka taaban doonaa hadda keyboard ka taabto automatic wuu isoo jare. sidoo kaleeto haddaa inta aad taabtane waa kaasaa mark in iyo mark out. muuqaalkii dheeraay intaan yarta uga muhiimsanaay ana uga baahnay aa ka soo jirtay. si aa inta u keena marka cashirkan ka horeeyay waxaa kusoo baranay sequence ayaa soo samaysanaynaa. kadib sequencegeen markaa soo samaysana insert haddaa dhaho hadda wuu soo geli doonaa muuqaalka. okay, waxaan raadinaynaa
muuqaal cod leh kan cod ma lahan kan hadda noo soo geli codka leh kaba soo qaad inta markaa soo gashano hadda waxay haddaa taabano aabaley dhahno cod inuu leeyahay waa ogaanaynaa fiiri sida ujeedada cod oo leeyahay marka waxaa rabaa asaga muuqaalkii codka iswata sida inta u keeni lahayn qaybta timeline-keena sidoo kaleeto muuqaalka keligiisa sida usoo qaadanaa sidoo kale codka keligiisana sida usoo qaadanaa marka haddaa rabna muuqaalkii codka inaad isla soo qaadno laba qaab waa samayn karnaa haddii muuqaalkaaga editing wax uusan u baahan inaad wax ka jarto toosa inta soo qaado inta keeni kartaa inta markaa keento sida ujeedid muuqaalkii codka isla socdaan qaybtan source monitorka haddaa keentane codkii muuqaalka inaad isla soo qaado haddaa rabto shaashadaas intaa left click taabato aad drag and drop kusoo sameynay asaga macala codkiisiisa wataana is soo raacay sidoo kale haddaa rabo muuqaalka keligiisa inaad soo qaato iconkaas muuqaalka mujeedaa video only waaye drag video only iconkaas intaa left click dhaho aad drag and drop kusoo jiidaa sida ujeeda waxaa soo qaadnay muuqaalka keliya waaye teeda kaleeto cod keliya inaan soo qaadana haddaa rabnayna iconkaasa soo qaadaynaa intaa soo dhigaynaa waa cod keliya muuqaal lama socdo qaybtaas intaana uga soo gudbaynaa marka kala shaandheen iyo kala habeen badan kadib markaa muuqaalkaa intaa kusoo jarjarato qaybta source monitorka kadib sida hadda kuu sheegay muuqaalka keliya haddaa rabto ama codka keliya ama muuqaalka codka isla socda haddaa rabto keliya waxaa samaynaysaa drag and drop adoo left click haayo muuqaalkii codka noo soo wada qaata hadda drag and drop inta soo dhig marka waxaa marar badan arki doontaa cilad oo inay tahay frame size-ka iyo video size-kaaga inay kala duwan yihiin marka inta kow waxaa dhihi doontaa keep existing setting markaasaan soo dhahdo muuqaalkaaga saanoo noqon doonaa ciladan marar badanaa la kulmi doontaa si a u xaliso marka waxaa keliya doorataa muuqaalka right click dheh waxaa kasii doorataa set to frame size automatic wuxuu la ekaan doonaa cabirka frame size-ka marka haddaa waxay qaybtan timeline-ka waxayraa ka sharaxno qaybtan koreeto waxaa lahaa video track qaybtan hoosena waxaa lahaa audio track hoostaanoo dhan waxaa safmaayo wixii codadka ah korna waxaa safmaayo wixii intaasoo korne wixii muuqaalada ah iconadana sharaxaynaa marka calaamadda isha ujeedid haddaa calaamadaas aa qariyo muuqaalka waa qarsamaa hide waa maqli jirta soo maa hide waay haddaa ishaas aa qariyo muuqaalka waa qarsamaa oo cod bisaa la arkaa hadda codka addaarno ujeeda cod bisaa loo maqlaa sidoo kaleeto mood icon calaamadda ujeedid emta waa mood waay haddaa rabo muuqaalka bis inaad daawado oo codka aa mood iskaga geliyo badan waxaa ku aragtaa wariyaasha idaacadaha muuqaal socdo in oversize la saaro voice over keliya waxaa samaynaynaa calaamaddaas m ku qoran meesha aa kilig siinaynaa hadda haddaa muuqaalka daawano cod ma lahan waa ujeedaa soo maa qaybtaasna codadka saasaa loo boodgareeyaa waxaa kaloo jiro qayb la dhahaya log muuqaalkan inaad daleeda haddaa rabin calaamaddaas loogaa saaraa muuqaalo kale tusaale haddaa inta soo gashto hadhowna aa highlight gareeyo calaamada daleed aad taabto waxaa keliya daleed mooye kuwa kaleeto waaye kan ma daleed maayo koos qufula iigu xiran badan qufulka waxaa lagu xirtaa background music haddaa aragtid iyo taraaga kuu saaran yahay sound effects-yada iyo kuwaasaa lagu xirtaa qufulka looga iconkan ujeedin inta ku safan waxaa la lahaa voice over asagana cashiraad ku qaadan doonaa Adobe Premiere Pro adoo ku dhex jirto si cod loogu duubaa sidoo kaleeto waxaa jiro wax la lahaayo slider wheel-kan wuxuu kuu qabanaa muuqaalka haysaan ahaa qaybta dambe haddaa arabto inaa aragto ama muuqaalka oo dhan taraagiisa saan waayo haddaa inta ka qabato aasan usoo jiido muuqaalkuu soo yaraanaa zoom in iyo zoom out waayo balse haddaa bartamaha aa ka qabato ujeedaa calaamadda muuska wiil camal waaye geeso u soconaa sliderradan inta yaalaan waxa waaye haddii taraagyo badan aa qabto hadda alti haddaa qabto aa ku koobiyeeyo tusaale taraagyo badan aa haysataa taraagyadaas ilaa kor inaa arkaa rabaa haddaa afkaas hore aa ka qabta aa kor u jiido taraagi wuu soo yaraanaa wixii kaleerta inaa arka camal waaye kana sidoo kaleeto asagana haddaa hoos u jiido wuu soo yaraanaa wixii taraagi iga hoose inaa arka waaye marka muuqaalkaaga intaa ku jarjaranaysaa dhammaantooda sida muuqaalada loo jarjaro qoraalada loogu qoro waxaasoo dhan muuqaalada dambe ku arki doonaa ugu dambeyn waxaa rajeynaya inaad fahamteen
sida muuqaal loo soo geliyo weliba sida panelskan oo dhan ay u shaqeeyaan cashirkeena maanta halkaan nooga eeg yahay waa mahadsantihiin dhammaantiina waxaa noo balan muuqaalkan muuqaal ku xigo